ilaha biyaha waraabiya magaalada Laascaanood toga durdurka loo yaqaano oo ay ku yaalaan ilaa 5 ceel kuwaas oo booyadaha biyaha uga qaadaan gudaha magaalada ayaa waxa dowray 5tii ceel 4 kamid ah sida ay sheegayaan guddiga iskaashatada booyadleyda ee magaalada Laascaanood ceelka kaliya ee ka soo haray ceelashaasi ayaa waxa ka jira biyo yaro daran ku dhawaad ilaa 100 booyadood ayaa ceelkaasi iminka biyaha ka qaada kuwaas oo waraabiya gudaha magaalada Laascaanood wana biyaha kaliya ay magaaladu hesho leyda biyaha ayaa sheegaya inay dhibaatooyin ku qabaan helista biyaha oo ay miilo u galaan si ay u heli lahaayeen biyo kuwaas oo ay ku qaadato saacado badan si ay biyo u heli lahaayeen waxa ay sheegeen in xilli habeenimo ay ceelka yimaadaan si ay biyo u helaan arintaasina ay dhibaato weyn ku tahay waxa intaas ku dareen inay maalintii qaadi jireen ugu yaraan ilaa 6-7 jeer hase ahaatee iminka ay dhib ku tahay inay hal mar helaan biyo 10 sano ayaanu joognay togan oo ka dhaaminaynay oo magaalada uga dhimaynay xaalad ay wali ka liidato maanta maanaan arag taas oo ay kaliftay abaartu anagu arinta in aan uga cabanayno alle gacmaha u dhiganayna dadweynuhu sida ay u ogaadeen waxaan wax yar oo dhaliila u soo jeedinaa qolada maamulka oo aan wali noo iman oo xaaladda dhibaatada aan wax daraasad aan ku samaynin oo aan wax kaalmo ah oo ama cagaf ha ahaato ama qalab ha ahaato wax dheeraad oo ay naraasan jireen wax ay raadlatay arinta iyada aan waxba aan ku samaynin ha maamulka dhaliil baan uga soo jeedinaynaa wali nooma iman oo daraasad xaaladda jirta ee dhabta kuma ay samaynin wali cid ay noo soo direen oo kormeer ku soo samaysay ama daraasad ku soo samaysay ma ay jirto waad aragtaa xaaladda halka kayuga ceelka yar aad aragtay ee biyaha ku jira baa kayuu loogu jiraa 3 saacadood ilaa 4 saacadood baa laga yaabaa gaarigu inuu taagnaado dhibaato aad weyn naga haysata booyadihiina biyihii way yareeyeen hadda waxay ka dhaamiyaan qaarkood magaalada gudaheeda ceelal ay ka dhaamiyaan qaar waxay ka soo dhaamiyaan maartay soo sheegay ceelasha sare ee beeraha beerihii sare ee toga gurwa qalaleen waan gartay marka inuu ilaahay noo sahlamo abaar xumaan ku jira kulli marka ceelkan inuu dawro ama biyo yareeyo abaarta keentay abaarta ha waqtiga nadir la joogo nooba biyo halka lama gaari jirin xagee la gaari jiray xagga salaam meesha hadda geed ku yaalo halkaas biyo joogi jiray halkaas laga dhaansan jiray xilligan oo kale waxay noo samaystay sida gobolka u saameysay gobolka ma ka mid nahay gobolka deegaanada biyaha gaarsiin jiray inta badan hadda biyo aad iyo aad bay ciriir yihiin waxa daciriir geliyay waa abaartaas markii biyuhu jireen magaaladu ma caban jirin si fiican baan biyaha u gaarsiin jiray hadda aanan xoog la nagu socota biyalaanta daraadeed dadku dhalaba oga biyalaanta hadda maaysan markii biyuhu jireen intee jeer baad gali jirtay maantii aad baan u shaqayn jiray si fiican baan u shaqayn jiray ilaa ugu yaraan 5 jeer 6 jeer baan gali jirnay marka hadda laftigeeda hadda waqti xaadirkan intee jeer baad maalintii biyo qaadaan waxaan qaadnaa muddo gaariga ugu dhamaan 3 jeer buu qaadaa waan gartay xaaladaas arrintan saameyn dhaqaale idinka ma idinku yeelatay aad iyo aad baan ugu yeelan weyday waxaan ugu yeelatay markaan biyihii faraha la qaadi jiray aan weynay xaalad dhaqaale hoos u dhacaysa xaaladan biyo la'aanta ay ka cabanayaan guddiga iskaashatada booyadleyda ee magaalada Laascaanood ayay sheegeen inay u sababeynayaan xaaladda abaarta ka jirta waddanka markii ay dowreen ceelashii ay biyaha ka heli jireen waxayna ay sheegeen in muddo sanad ah iminka uusan toga durdurka magaalada Laascaanood biyo soo marin Faarax Maxamuud Dubad TV-ga Goobjoog magaalada Laascaanood